ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen deegaanka Korkoor ee gobolka Boqol waxa ay ku soo furteen in ka badan 40 qof kuwaas oo ay madax furasho haysteen dagaalamayaasha al-shabaab. Ururka al-shabaab ayaa la sheegay in dadkan ay ku qasbiyeen inay bixiyaan lacag ay ku soo rogeen hase yeeshee dadka deegaanka ayaa arintaasi ka biyo diiday. waxaana dagaalamayaasha al-shabaab ay markii dambe dadkaasi qafaal ahaan ugu haysteen deegaanka Korkoor ee gobolka Boqol. hase yeeshee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka war helay dhibaatada dadka shacabka ay ku hayaan ururka al-shabaab iyadoo markii dambe ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay u suurta gashay inay ka soo badbaadiyaan in ka badan 40 qof kuwaas oo dagaalamayaasha al-shabaab ay madax furasho ugu haysteen deegaanadaasi waxaana dadkaas oo nabad qaba dib loogu celiyay guryahoodii. dhanka kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kumaandooska ee Gorgor ayaa waxay howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen deegaanka Cumar Beere ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ciidanku ay ku soo saareen kumanaan miinooyin oo ay dagaalamayaasha al-shabaab ay ku aaseen wadooyinka isku xira deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa kumaandooska ee Gorgor ayaa dadka deegaanadaasi kaga mahad celiyay sida ay xogta la soo wadaageen ciidanka dawladda waxaana saraakiisha hogaaminaysa ciidankaasi ay sheegeen in ay sii wadi doonaan howlgalka miina baarista ee ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab. dagaalamayaasha al-shabaab ayaa deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose ay fariisimo waaweyn ku leeyihiin waxa had iyo jeer ay miinooyin ku aasaan wadooyinka ay adeegsadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale kuwa dadka shacabka hase yeeshee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo had iyo jeer hela akhbaaraadka iyo wararka ku aadan meelaha ay miinooyinka ku aasaan ayaa fuliya howlgallo noocan oo kale ah iyagoona ku soo saara miinooyin badan oo halkaas ay ku aaseen dagaalamayaasha al-shabaab.